Noloshu waa halgan iyo hayaan dheer, waxaana hareer socda hawlo iyo hirar badan. Waddada guushuna inta badan hiil iyo hooba ma leh. Rabitaanka naftaada, hankaaga iyo himiladaada ayaa ah waxa kaliya ee ku hagaya. Marba haddii mas'uuliyad aad qaaddo ama hanaqaadba aad gaadho, waxaa hubaal ah inaad ku haminayso si aad ku hanan lahayd rajada iyo riyooyinka hurinaya qalbigaaga. Waxaana yaraanaya hurdada iyo hasaawaha badan ee haweenka, been hawaaska iyo wixii la mid ah. Noloshu waa mid haadaama kuu qodaysa, waxaana isdiidaya hamiga iyo hawsha. Waa halkii Abaan Hadraawi uu ka lahaa Allaha u naxariistee, naf baan isla doonayaa isdiidda dhexdeeda taal. Waxaa adiga sahay kuu ah Qur'aanka, dikriga iyo xuska Eebbe, suugaanta nuxurka leh, falsafadda iyo xigmadaha nolosha. Waxaad aamintay hagaha adduunka ee ah Ilaaha weyn ee waaxidka ah, waxaana ku hiranaysaa dadka ruuxa hami aad wadaagtaan, hal meelna wax kaala arkaya, kuna fahmaya. Waa halka uu ka lahaa macallinka nolosha Abaan Gaariye Allaha u naxariistee, abkuu doono ha sheegtee, waxunbaa ehel ii ah, dad ninkaan af aqaanin si wax iila arkayayna midayso ujeeddo. Waddada hayaanka guushu waa mid adag oo aad ku fayso inaad kacdana kaa rabta. Maalmaha adduunyadu waa meerto oo qofba maalintiisa wixii u qoran ayuu dheefsanayaa dhididkiisa. Nolosha in aad meel buuxiso kadibna laguma jeertaa miyaanay kula fiicnayn? Haa, waa kula fiican tahay. Waana halkii uu ka lahaa Abaan Hadraawi Allaha u naxariistee, mintid noqo abaabulan iyo lagama maarmaan, marwadiisu jeceshahay, ubadkiisu meel dheer uga soo mashxaradaan. Saaxiibayaal, waa anigoo inay halgan iyo hayaan wacan.